السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دين سلامي دامان أمد الصوماليات ميل كستقود أدونك كجوكتان وحان إذن لا يهيقول يقبني ما أن دمانين جنال كداوانا يسانا وجنال كي فردوسة إسماعيل جنال وحان لا يهي تيم فردوسة إسماعيل يتيم قول يقبني ما أو إسكو دوبان وحان إذن لا يهي سلام الله عليكم ميل كستقود أدونك كجوكتان خير إيا بركة إيا نور الله الرحمن كأه هايدن كسيو ربنا هنو سياديو عافماتك وإلهي نسيي الله الرحمن كأه نقوم نايستي قف كان عافمات هاي سنين مهدله قف كان محانكو إلى هذاي وحكم قيهين مهدله قف كان فرح سنين مهدله قف كان دقنين أو حسلوني ذا كم قنتهين مهدله وبرغرامكي أها إسلويني ذا إيوه دقونيمادو حقاي iska leeyihiin wa barnaamijkii ka bixi jiray janalka Firdawsa Ismaaciil Janal waxa jeedinaya barnaamijka aniga oo ah Warsan Sheekh Maxamed waxaana idin leeyahay soo dhawaada dhamaantiina intay Firdawsa ka soo laabanaysa insha Allah biidnillaahi rahmaan oo mar dhow aad garabkayga ku arki doontaan su'aalo badan oo ka yimi barnaamijka isla weynida iyo xaggay iska leedahay doqonnimada su'aalahaas oo runtii dib u fiiriyay oo ahaa barnaamijka wixii ku jiray isla weynidu waa waxaan fiicnayn isla weynidu dadku dhaxdiisa waxay ku leedahay ama bulshadu dhaxdeeda waxay ku leedahay nin walba wuu ogyahay waana ka dharagsan yahay isla weynidu waxay leedahay in ay dib ku dhigto shaqsi ahaantaada inay adiga dib ku dhigto isla weynida ayaa iska leh isla weynida waxay kale oo ay leedahay in ay dadka ka dhax saarto ibni aadamkii dhamaa ee aad ku dhex jirtay bay ka dhax saaraysaa waa wax dhaco waa xaqiiqatu bilcayn waa wax la og yahay isla weyninku muxuu ku yimaadaa maxaase keeno sideese qofka isla weyn aan ku garan karnaa waxaad ku garan kartaa ood ku ogaan kartaa oo dabeecadaas qof kale aad ku fahmi kartaa inta badan wuxuu isu maleeyaa qofka inuu dadku ka caqli badan yahay laakiin ma aha inuu dadku ka caqli badan yahay wuu isku dayayaa inuu adiga xitaa caqligaaga iyo maskaxdaada isticmaali karo wuxuu ka soo qaadayaa qof aan waxba garanayn wuxuu ka soo qaadayaa qof aan waxba kala ogeyn wuxuu rabaa inuu ku dhaho qofkani waxba ma yaqaan laakiin wax waa taqaan hadda xitaa aad is leedahay sideen oga gaabsadaa qofkaas isla weyninka yaqaano doqonnimada iyo isla weyninkuna intay iska leeyihiin waxaan u soo noqonayaa su'aashii ahayd haddaan raba inaan iska ilaaliyo qofkaas sideen isaga ilaalin karaa وسؤالها ماشي كجرو waxaad isaga ilaalinaysaa dabeecadda qofka adoona baranin adiga oonan fahmin adiga oonan ogaanin adiga oon u dhabagelin naftaada ha u dhiibin qofka waa inaad baratid ugu horeen qofka markaad ku aragtid inuu isla weyn yahayna tartiibka leexo isla weyninka iyo kibirka Allah arrahmaanka way u sugnaatay adiga kuma sugnaan aadanaa tahay weynaha kibirka u dhaaf Allah arrahmaanka koonkan iska leh ayay awoodiisa iyo cadamadiisa ku dhisan tahay koonka inta la eg ayaa kibir iyo awood agtiisu ay taala adigu laakiin aadamaa tahay qofka aad rabtid inaad baratid ama aad rabtid inaad rafiiq la noqotid ama aad rabtid inaad la socotidna barasho gaar ah oo ka rabaa maskixiyan iyo aqliyan aad u baratid oo u eegtid haddaad aragtid qofka inuu kibir ku jiro isla weynina ku jiro isaga ta qofkaas waxba ha ku darsan waayo wad ku waalanaysaa doqonnimada iyo kibirkana waxay iska soo galaan qofka doqon hadduu yahay waxba kama leexdo qofka kibirka badan isla weyninkana waxba kama leexdo ma siqsiqo qof yacnaha xishood ku dheehan ma aha qof wuxuu doonaba dhaxi karo
qofkaasoo kale marka waa laga gaabsadaa, qofkaasoo kale dantaada laga raacaa, qofkaasoo kale waa laga leexdaa. haddaad aragtid shaqsi kibir yaqaanana isaga tag, dembi buu ku gelinayaa. dembiga uu ku gelinaya waxay ka mid tahay kibir allay u sugnaatay. adigu inaad kibirtid ma aha, inaad isla weynaatid ma aha, qofka inaad dulaysid ma aha ood kibirkaaga ku dulaysid ama isla weyninkaaga qofka ku dulaysid ma aha. marka borogaraamkan aniga iyo waxaa isla wadnay gabadhan habaryarta uu ahay Firdowso Ismaaciil, mar walbana wuxuu ka baxayay janalka Firdowso Ismaaciil. habeen aan halkan joognay oon aniga ayada isla fadhina ayuu borogaraamkan wuxuu ku yimaaday qof isla weynin ka sheekaynayo. kadib waxaan idhi habar yar, borogaraam wacyigelin ah oo dadka aan uga sheekayn karna haddaan ka dhigna ka waran. sidii buu borogaraamkan ku baxay. ulajeedo ma u lihin, dan kalena kama lihin, laakiin waxay naga tahay ka qabo qofka walaalka ah ama waalidkaba aan u noqon karo inuu isla weynaado ama kibro ama xadgudub aad ku samaysad qof walaalka ah. no, markaad rabtid in aad ka leexatid qofka isla weyninka iyo kibir ka yaqaano, waxaa la isku xiraa allaha raxmaanka ah. intaad isku xirtid ka leexo. mar walbana wuxuu ka baxayay janalka Firdowso Ismaaciil. habeen aan halkan joognay oon aniga ayada isla fadhina ayuu borogaraamkan wuxuu ku yimaaday qof isla weynin ka sheekaynayo. kadib waxaan idhi habar yar, borogaraam wacyigelin ah oo dadka aan uga sheekayn karna haddaan ka dhigna ka waran. sidii buu borogaraamkan ku baxay. ulajeedo ma u lihin, dan kalena kama lihin, laakiin waxay naga tahay ka qabo qofka walaalka ah ama waalidkaba aan u noqon karo inuu isla weynaado ama kibro ama xadgudub aad ku samaysad qof walaalka ah. no, markaad rabtid in aad ka leexatid qofka isla weyninka iyo kibir ka yaqaano, waxaa la isku xiraa allaha raxmaanka ah. intaad isku xirtid ka leexo. waxba ma kugu soo kordhinayo. qofka hadduu mar isla weyn yahay waxba kuguma soo kordhinayo. qofkee wax ka qaadan kartaa? for example, hadda waxaan usoo qaadanaynaa social mediaha soo gelaysaa. markaad social mediaha soo geshid, qof baa soo gelayo, waxbuu soo jeedinayaa. wixiisa waa wax ku anfacay, waa wax tayo leh, waa wax tusaale leh, waa waxaad qaadan kartid. hadalkan inta lagugula soo fariistay lagu sheegayo, wax sheegu ma xumo. inaad wax intaa sheegtid lagaa qaato social mediaha dadka ku jiro oo dhan way u baahan yihiin. hadalka maskaxdaada adigu ku jiro ama maankaaga ku jiro ama qofka walaalka ah ka maqan, waxaa laga yaabaa social media inuu ka dhex helo maanta. si bilaashaad ku helaysaa. akhlaaqiyan iyo edab ahaan waa la soo baran jiray, iskuulaad baa loo aadi jiray. laakiin hadda halkan markaad soo geshid oo social mediaha aad fiirisid ama youtube-ka dadka ku jira aad aragtid, waxaad ka baranaysaa qof walba hadalkiisa. waxaad noqonaysaa macallin. waxaad ku macallimaysaa hadalka xun iyo hadalka fiican saad u kala qaadan lahayd. waxaad helaysaa astaamihii aad ku arki lahayd ama aad ku garan lahayd qofka aad isleedahay waa la socon kartaa, kibir iyo isla weynina kuma jiro. qofka aad isleedahay ilaahay buu kaaga dhow yahay, waana qof aad isleedahay waa ehel u khayr. ka adiga isleedahood la socon kartid, waxaad ka dhexelaysaa hadalkiisa. waxaa ku deeqaya hadalkiisa, waxaa ku anfacaya araggiisa. waxaad noqonaysaa marka qof niyaddi ka nool. niyaddaadu markay nooshahay oo niyaddaadu fiican tahay, oy niyaddaadu saliim tahay, oy niyaddaadu wanaagsan tahay, walaalkaa wax waad ka qaban kartaa, waanad ka celin kartaa, waanad la hadli kartaa, waanad u sheegi kartaa. kartida iyo awoodda ilaahay uu ku siiyana markaasaad soo bandhigan kartaa.
waxaan anigu isleeyahay warsan ahaan ah qofka haddii aad wax u sheegtid oo waanadaada iyo hadalkaaga aad gaarsiisid in uu qaadanayo waasaan anigu aaminsanahay dad baa waxaa laga yaabaa inaysan qaadanin oo hadalkaagaba ku socon laakiin waxaa muhiim mar walbaba ah waxaad halkan usoo fariisatay inuu noqdo wax qurux badan oo aad gudbin kartid dadkuna ay ka faa'iidaysan karaan ood isleedahay wax ku ool weeye waxaan social media weeye waxaa gelaya hadalkaaga waxaa gelaya muuqaalkaaga waxaa gelaya ficilkaaga waxaa gelayo adiga oo degan oo wanaagsan oo qurux badan wixii aad sheegtay waxaa gelayo adiga oo xumaan ka hadlayo waxaa gelayo adiga oo si kale u hadlayo qaldan wixii kayd buu noqonayaa berri haddaa dhimatidna meesha bay ku jirayaan ilaa lagaa saaro mooye marka waxaan leeyahay isla weyninka iyo kibirku waa shay xun qofkana dib u dhac ku keeno maskixiyan iyo caqliyan dib u dhac bay kugu keenayaan haddaad tahay qof kibir badan ama isla weyn waxaa dib kaaga dhacayo adiga sharaftaada samcadaada aqoontaada garashadaada caqligaaga saliimka ah ayaa dib u dhac ku imaanaya wuxuu ugu imaanayaa xag rabbaani oo minallahi waa uga imaanayaa waayo kibirka ilaaha raxmaanka iskale shaqadii kuma lihid aadanaa tahay waxa aad gudbiso ha noqdaan wax wanaagsan oo lagaa qaadan karo ku dayasho iyo tusaale fiican noqo ha lagugu daydo ha lagaa qaato waxa fiican ha la iska daayo waxa xun wixii qalade aniga aan ku hadlay aniga sayruuq ah iyo shaydaan iyo naftayda raaciya wixii wanaagsaneen ka hadlayna allaha raxmaanka dhammaanteenba ajir haynaga siiyo allahana haynoo qoro laakiin mar walbaba waxaan leeyahay ku dadaal inaad noqotid qof daacad ah oo u dagaalamayo daacadda qof ka soo horjeeda isla weyninka iyo kibirka noqo qofka masaakiinka u naxariisto qof naxariis badan dhimrin badan wax sheeg badan waano badan wax siin badan waxyaalahaasoo dhan markaad noqotid waxaad noqonaysaa qof ummadda ka soo baxay oo wanaag lagu tilmaamayo haddii ay xumaantaada badato waxaa qalbigaaga daciif noqonayo araggaaga daciif noqonayo wanaagaaga daciif noqonayo hadalkaaga xumaantaa badanaysa samaantaa yaraanayso ha isku dayin marka in aad isla weynin iyo kibir isticmaashid adiga oo aadana ah adiga oo berri lagu xisaabinayo adiga oo berri allaha raxmaanka uu kaa dambeeyo ilaahaygii raxmaan ahaa waxa weeye waa qafuura raxiim ummaddiisu wuu eeganayaa dushaasuuna ka eeganayaa dembiga haddaad dabaalatid aday kuu taallaa laakiin marnaba isla weynin iyo kibir xagga iska dhig marnaba xagga iska dhig kibirka iyo isla weyninka qofku haddaad ku aragtid inuu qof isla weyn yahayna tartiib ka leexo waddadu way badan tahay dadku waa badan yahay barashadu way badan tahay hadalku waa badan yahay qof wanaagsan baad baran kartaa ood heli kartaa marka wax walbaba waxaan leeyahay khayrka iyo barakada ha la isku kaalmaysto ilaahaygii raxmaan aha dhammaanteen cafi iyo caafimaad hana siiyo allaha raxmaanka waxaan ka baryaynaa sidaanu u qurux badannahay oon u wanaagsannahay oo qalbiganagu mid wanaagsan ilaahay haynooga dhigo dhammaanteen qalbigana mid wanaagsan allaha nooga dhigo camalkanagana mid qurux badan allaha nooga dhigo cibaadadeennana mid dhammaystiran allaha nooga dhigo cafi iyo caafimaad allahana siiyo bargaraamkan waxaa jeedinaya aniga oo ah warsan sheekh maxamed inshaar waxaanan ka jeedinayay janalkii firdowse ismaaciil janal waa kibirka iyo isla weynida iyo doqonnimadu xaggay iska leeyihiin marka wuxuu ilaahay iga garansiiyo mar walbaba ee ama qalbigaygii uu ku soo dhaco ama aan soo diyaariyo ama su-aalaha la isoo weydiiyo sidii aan dadka uga jawaabi lahaa insha allahu biidni illaahi raxmaan waan sii wadi doonaa haddii uu rabbi raalli ka noqdo waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum cafi iyo caafimaad leega iyo sheerka iyo kommentiga iyo sabskraibeka waa tiim yaa firdowsa iyo tiimkii guul iyo gobonnimo oo isku duuban tiim sayruuq sheekh dhammaan waxaan idin leeyahay salaamullaahi calaykum